halaagsamay loona baahan yahay qofka muslimka inuu intibaaho oo uu ka digtoonaado shabakadaas uu rabo shaydaanku inuu u dhigo oo uu ku ballan ku qaaday inuu dadka badankooda u kaxaynayo xagga naarta qofka muuminka markuu akhriyo ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala ee suuradda aayadda 49aad iyo aayadda 50aad ee suurat xijr ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay nabbi cibaadii annii ana alghafuuru raxiim wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliim aayaddaas labada aayadood runtii qofka muslimka waxay ku dhalinayaan alkhawf walrajaa maaragtay inuu waana labada garaba muslimku uu ku socdo waaye cabsi ilaahay uu ka cabsado oo ciqaabkiisa iyo naartiisa uu ka baqo iyo rajo uu rajaynayo ilaahay raxmadiisa waa ilaahay wuxuu leeyahay nabbi cibaadii addoommadayda u sheeg annii anigu ana alghafuuru raxiim allaha dembi dhaafka badan oo naxariista badana ahay dhanka kalena waa anna cadaabii cadaabkaygu huwa alcadaabu alaliim inuu yahay cadaab aad wax u xanuujiya marka qofku waxaa loo baahan yahay qunuudna inuusan gelin quusasho inuusanna maaragtay uusan tasaahulin awaamirta ilaahay uusan ka tasaahulin uusan macaasida uu iska dheereeyo ka fogaado ayaa loo baahan yahay suuradda waxay aad uga hadashay suurat alxijr qisadii nabiyullaahi ibraahim runtii waxaana aad ugu soo noqnoqday maaragtay lafdiga bushra bishaarayn loogu bishaaraynayo maaragtay kelmaddaas bushra aad bay ugu soo laalaabatay qofka muslimka inuu mar kasta uu bishaaraysto oo uusan quusan ayaa loo baahan yahay waxaa lagu sheegay qisadii nabiyullaahi luud iyo raadka xun ay leedahay macaasidu maaragtay siba fawaaxishta iyo akhlaaqda xun sidii reer qowmu luud waxay samayn jireen ilaahay inuu cadaabay cadaab aad daran oo aad u xanuun badan oo iyaga qayrkood aan la cadaabin wax cadaabkii u horreeyey inta kor loo qaaday iyagay meesha deganaayeenba lala fujiyey oo sare loo qaaday baa lasoo afgembiyey oo weliba intii sare loo sii wadan dhagxaan naaraa lagu shubay kadibna af baa loo soo gembiyey maaragtay suurat alxijr aakhirkeeda waxaa ku jirta aayado runtii qof kastoo muslima uu u baahan yahay siba qofka dareemaya dayq ciriiri laabtiisa ka dareema haddaad ciriiri iyo hami iyo walwal iyo walbahaar iyo aad dareentid aayadahaas qur'aanka ku tadabburo akhriso walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin yacni haddii dayq iyo ciriiri laabta uu ka hayo waxaa la yidhi fasabbix bixamdi rabbika tasbiixda badso wakun min asaajidiin salaada nabigu sal lla alay slam markay hami iyo arrin u timaado kaana yubaadir ila asalaat inuu marka qofka muslimka uu faa'iidadaas qaato loo baahan yahay suuratu naxl oo juska iyaduna ka mid ah suuraddaas waxaa lagu magacaaba culamada qaar ay ku magacaabeen suuratu nicam nicmooyin fara badan oo ilaahay uu bashar ku galladaystay ayuu ilaahay tirinaya oo ku faahfaahinaya maaragtay loona baahan yahay nicmooyinkaas in looga mahadnaqo allihii kariimka ahaa ee nuu galladaystay marka waxyaalo badan nicmooyin badan ayay ishaartay suuraddu oo maaragtay ugu wen yahay maaragtay qur'aanka kariimka iyo soo degitaankiisii suuratu naxl waxa ay ku bilaabatay inay sheegto adilo badan inay soo bandhigto oo tusinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu keli leeyahay ilaahnimada iyo rububinimada loona baahan yahay keligiis in la caabudo subxaanahu wa tacaala waxa ay meesha ka saartay oo ay burisay xujajtii baatilka ahaa ee kuwa mushrikiinta ay soo daliilsanayeen oo ilaahay qayrkiisa caabuda markii nicmooyin badan laga hadlay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nugu galladaystay bay waxay ka hadashay kuwa nicmooyinka ilaahay ku kufriyey aladiina kafaruu biancumi illahi subxaanahu wa tacaala iyo ciqaabihii dardarnaa ee aadka u darnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ciqaabay kuwii nicmooyinkii rususha ilaahay usoo diray iyo tawxiidkii iyo inta garan waayey ku kibray ilaahay subxana wa tacala inuu ciqaabay taasna waxaa naloo kugu sheegayaa in aynu maaragtay aanu digtooni qaadano oo aan nicmadii ilaahay nagu galladaysan alxamdulilah aan dhahno aynu ku kufrin ilahay nicmata caafimaad na siiyey indhaha uuna siiyey inaanu macaasi aanu ku fiirin carabka uuna siiyey inaanu dad ku xaman dhagaha uuna siiyey inaanu muusig iyo bakti aanu ku dhagaysan ilaahay subxana wa tacala caafimaad ku siiyey iyo xoog ku siiyey in nicmooyinka in loogu shukriyo oo loo adeegsado ilaahay wax uu raalli ka yahay subxaana wa tacaala suuradda waxaa lagu khatimay aakhirkeeda boorina laku boorinayo addacwa ila allahi subxaana wa tacaala oo weliba in la adeegsado dacwada ilaahay dadka diinta marka loo yeedayo bilxikmati walmawcidati alxasana in loogu adeegsado ilahay subxana wa tacala wuxuu yidhi aayadaha 125 ee aayadaha ka dambeeya udcu ila sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون آياتhaas aadka u qurux badan oo tawjiihaadkaas iyo maaragtay ay ku jiraan maaragtay tilmaamahaas wanaagsan ayay suuradu ku khatimtay maaragtay loona baahan yahay qofka muslimka ah in uu maaragtay aad iyo aad isugu dayo in uu maaragtay adeegsado markuu dadka diinta ugu yeerayo xikmad iyo si wanaagsan waxay kaloo aayaduhu ay ishaareen oo suuradda lagu khatimay haddii qof dhib uu kugu geysto وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذه قف wax dhiba uu ku geysto dhibkii uu ku geystay way banaan tahay in aad dhibkii ka aarsatid ama maaragtay maxkamad u mar ama si kale u mare laakiin ilaahay wuxuu nagu booriyay wala in sabartum lahu khayru lis-saabiriin laakiin hadaa iska cafidid aayada waxay nagu boorinayaan cafiska iyo wanaag uu leeyahay in la is cafiyo ayay nagu boorinayaan maaragtay iyo sabrigu wanaaga uu leeyahay wasbir wama sabruka illa billah wasbir wama sabruka illa billah ilaahay wuxuu leeyahay sabarka ilaahay ba ka abaal marinaya waatay aayad kale ahayd inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab quraankuna aad buu ugu soo celiyay sabarka iyo wanaag uu leeyahay iyo miraha wanaagsan iyo natiijada wanaagsan oo ka dhalata maarag qof sabray wax ma soo gaarto shalay ama soo gaaro ilaahay wuxuu ku khatiyay marka إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لبدا صفو عبسد إلهي إيه إحسان كل لي مادو ولبدا صفو ugu wanaagsan ee loo baahan yahay qofka muslimka ah in uu maaragtay mar walba u ku dada إن الله مع الذين اتقوا إلهي wuxuu macooda yahay maciyadaas waa maciya التوفيق والهداية وماركتي إلهي سبحانه وتعالى معيadaas waa maciya khaasa la yiraahdaa kuwa ilaahay ka baqa ilaahay macooda ayuu yahayo wuu gargaaraayo tawfiiqdu waafajiyaayo wanaaga iyo khayrka ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu maaragtay ku hanuuniyaa marka juska 14aad waxaan kusoo khulaasayn karnaa oo aan niri wuxuu ka bilowday suurat al-hijr ilaa iyo waxa uu socday maaragtay nihaayada suuratu nahl mawaadiicda ugu waaweyn ee ay ka hadleen intaas ayaan isleeyahay baan kusoo khulaasayn karnaa laakiin mar walba sida aanu sheegnay qofka 10 daqiiqo loogama dhigtin karo suuradahaas iyo juska dhan macaanida faraha badan ee marna qisooyin kale marna tawjiihaad kale mar ahkaam kale mar bacthigi iyo qiyaamihii iyo laga hadlayo inuu qofku 10 daqiiqo loogu soo koobo barnaamijkan ba ugu waan tirin laakiin waxaan ugu talagalnay in qofka muslimka aan ku tawjiihino aan ku tanbiihino juska markuu akhrisanayo macaanida waaweyn ee ku jira maaragtay inuu ku tanabuho in loo baahan yahay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala naga dhigo kuwii quraanka ilaahay ku tadabburo markay akhrinayaan oo ku camal fala oo raaca hadiga quraanka kariimka ah runtii waxa weeye waa kalaamullah qofkii akhriya kalaamka ilaahayna halkii xaraf uu akhriyo 10 ayuu leeyahay nabigu waa tuulaha ma dhahay alif lam mim waa xarafe alifkuna waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf quraanka marka akhrinayna marka waxa loo baahan yahay walaalayaal inaan ku tadabburno macaanidiisa aan dhuuxno إلهي وحو ليه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب